waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii isboortiga ee hoyga Soomaalida Holland dhageystayaal caawana waxaan idinku hayaa kooxda kubadda cagta ee magaalada Eindhoven ee dalkan Holland. PSV Eindhoven ayaa daboolka ka qaaday in ay si ku meel gaar ah shaqada uga fariisiyeen Jonathan Reis oo ah nin Brazilian ah oo kamid ah ciyaartoyda dhinaca weerarka uga ciyaarta PSV Eindhoven. kadib baaritaan uu sameeyay naadigu ayaa lagu soo ogaaday in ciyaartoyga Reis uu isticmaalay waxyaabo aan la ogolayn ama maandooriye ah waxaanay kula taliyeen in uu tago goobaha lagu caawiyo dadka dhibaatooyinka noocan oo kali ay la soo darsaa hase ahaatee waa uu diiday ninkaasi Brazilianka ahi waxaanay taasi keentay in shaqada iyo naadiga PSV Eindhoven laga fariisiyo si ku meel gaar ah. Jonathan Reis ayaa dhawaanta ka soo noqday dalkaasi Brazil oo dalkiisa hooyo waxaana isla markiiba dareemeen qaybaha caafimaadka ee u qaabilsan kooxda PSV Eindhoven in ciyaartoygan wax ay ka siiyeen oo uu aadna u daalana tababare Fred Rutten ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay arrintan la soo diristay ciyaartoygan dhalinta yar oo baryahan dambe ka mid noqday wajiyada ugu caansan ee kooxda PSV Eindhoven. xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi Spain siiba qaybta asluubta ayaa sheegtay in ay ka fariisiyeen laba ciyaarood in uu u dheelo kooxda Real Madrid isna ciyaartoyga weeraryahanka Portugiiska ah ee u ciyaara kooxdaasi Cristiano Ronaldo. ciyaar dhawaanta dhex martay Real Madrid iyo kooxda Malaga oo ay 2-0 kaga badiyeen ayuu daqiiqadii 70aad ciyaarta Cristiano Ronaldo suxul bareer ah sanka kaga dhuftay Patrick Mitiliga oo ah difaac u ciyaara kooxdaasi Malaga halkaas oo uu sanku jabay Mitiliga oo ah ciyaartoy hore ugu ciyaari jiray kooxda Feyenoord ee magaalada Rotterdam. Ronaldo oo kaarcas la siiyay isla markiiba garoonka dibadda looga saaray ayaa sheegay dhankiisa in aanu si bareer ah ama ula kaca ugu dhufan suxulka ciyaartoygaasi waxaanu isla markiiba raali geliyay Patrick Mitiliga oo uu sanka ka jabiyay markii ay ciyaartu dhamaatay oo la wareystayna waxa uu ku celceliyay in aanu isagu arintaas ama suxulkaas bareer ugu dhufan ninkaasi. dhankale weeraryahanka caanka ah ee Ruud van Nistelrooy ayaa si aad ah looga soo dhaweeyay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka iyo kooxdiisa cusub ee HSV waxaanu si aad ula dhacay sida wanaagsan ee diiran ee loo soo dhaweeyay ama looga soo dhaweeyay kooxdaasi waxaanu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu ka qayb galo ama ka ciyaaro horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga isagoo ku niyadsan in loogu yeeri doono xulka qaranka Netherland oo ka qayb gali doona koobka adduunka ee kubadda cagta ee lagu qaban doono dalkaasi Koonfur Afrika. waxaanu qalinka ku duugay Van Nistelrooy heshiis muddo sanad ah inuu ciyaaro kooxdaasi HSV waxaanu toddobaadkan ka soo duulay magaalada Madrid halkaas oo si aad ah madaxda kooxda Real Madrid iyo taageerayaashuba ay ugu mahad celiyeen sanadihii uu ka ciyaarayay naadigaasi oo u dhawaanta ka soo wareegay Van Nistelrooy. Football Club Haarlem ayaa dhawaanta si kama dambayna albaabada loogu laabay kadib markii ay in muddo ahba la soo darseen dhibaatooyin dhaqaale. kooxda magaalada Haarlem ee dalkan Holland ayaa weyday cid maalgelisa lana wareegta naadiga oo lagu lahaa $1,800 oo lacagaha Euro-ga ah oo deyn ah waxaanay ciyaartoodii ugu dambeeyay ciyaareen maalintii Jimcihii oo 3-0 ay uga awood sheegatay kooxda Excelsior ee ka socota magaalada Rotterdam. kooxdaasi Haarlem ayaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1889 ciyaartoodii ama heerkoodii ugu sarreeyay gaadhayna wuxuu ahaa 1946 markii ay ku guuleysteen horyaalka dalkan Holland. qaybaha ka haray ciyaaraha iyo wararkana waxa caawa inoo haya isna qaybtiisa Maxamed Cabdi Yuusuf oo diyaar inoogu ah. Maxamed